halkani waa TV-ga Farxii Soomaali Official waxaan halkan idiga soo gudbin doonaa doorashada maanta wadanka Soomaaliya ka socoto caasimadda dalka Soomaaliya Muqdisho sida ay tahay magaaladii Muqdisho aad u jeedaan waa mugdi waa madow waa cidlo waxay la isku hayaa waraaba ku cunaya jididki laamiyadii waxa dhan raq way wax socdo malahan gawaari socoto malahan waxa waa iska cabsi adduunka dhan shib waaye waxa TV-dii baa indhaha lagu hayaa telefoonadii baa sidaa loo wada hayaa marka waxa dhici raba doorashadaas oo lagu dooran rabo madaxweynaha dalka Soomaaliya oo maaragtay xukumi doono dalka Soomaaliya oo ummadda Soomaaliya matali doono madaxweynahaas oo qof waliba mid oo wato waxa doorashada ka soo qayb gashay intaas oo madaxweyne kuwa hore xilka soo qabtay iyo kuwa oo wali aan qabanin dhammaan waxay diyaar u yihiin inay madaxweynaha dalka Soomaaliya noqdaan anaga sida aan ognahay kursigu waa hal xabo waxa ku fariisanayna waa hal nin laakiin intaas kumanaan nin oo soo sharaxday waxay soo bixiyeen qarash juhdi si ay u noqdaan madaxweyne anaga waxaan wada sugnaa madaxweynaha wadanka qaban doono ko noqon doono baa sugunaa anaga ma ognin ilaahay baa og laakiin dadka Soomaalida mid kasta qof baa wata kii jaceelku ku wato iyo wax qabadkiisii madaxweynaha hore ama kii qabiilku watabo kulli qof waliba qof ayuu wataa laakiin unuka saawnaahnay family Farxii Soomaali Official unuka hal xabo ma wadano oo laga yaabo inaa wadan laakiin sakrad waay marka anaga waxba hadda meeshan kuma sheegeen hebela wadana ma dhaheen waxba ma wadano marka waxaan sugnaa waa madaxda madaxweynaha wadanka xukumi doono waan sugeynaa anaka geed gaawan iyo maxaa ugu fadhinaa geed dheer intaasba ugu fadhinaa inuu madaxweynaha wadanka imaahoyo as xukuma dalka madaxweyne soo dhaw madaxweyne ka noqon doonta laakiin madaxweyne ka noqon doontin ma oshi anima go isla ku haya ya mid labad wata ma tahay mid cusub noqon doonta dalkeena sida ognahay anaga madaxweynaha hal maalin hadoo xukumo hal sano ya afar sano oo xukumaade hal mar labaad ma ku soo noqdo unuko yani dabeecadda Soomaalida yaashim yaa ma oshi marka laga yaabo laakiin mid horana inuu soo laabto macquul laakiin inta badan dadku waxay leeyihiin Soomaali hal dabeecad ay leeyihiin madaxweynaha hore ma soo celiyaan oo madaxweyne cusub ay keenaan haye dadkine qaar cusub qaar ay wataan qaarna waxay wataan dadkii hore marka anagana waxba iska wadana laakiin waxayna xaalad jiro awgeeda waan iska secret cabsi marka waxaan idin leenahay waa idin salaamaya horta gowdhaha igu qaata maanta waali hadda idigu soo galay xagee ka daawanaysaa doorashada marka commentiga looga soo qarbo team Farxii Soomaali Official idin ogaadee dadka aniga subscribe ii saare aan kala arkay mal ii soo kala qorbo qof kasta wadanka joogo oo doorashada ka fiirsahayo ii soo qor laakiin muhiim ma ahni ka wadina soo qortay waa ogaa oo kusoo dareysiinay linka Soomaaliya idil dhahay oo kusoo dareysiinay maanta wallahi bila telefoonada kora loo hayaa saa loo wada fiirsan waan fahanteen oo TV-dan waa loo fiirsan ani laakiin misdiba event xilliga doorashada bilaabata fiirsahaani saas indhaa u hayaa dada had si fiirso hoolka everkiis maxaa laga fiirsaa micna doorashada waa bilaabo rabtaa hadda waxir kadib videogana hadda idin soo gelinayo idin soo duubo event hadda idin soo gelinayo mideeda kale walaalayaal boqolki waxyar aan nooga dhimanay videoga hore u qaat madaxweynihii oo cusub oo soo socdaan fariina u soo diray fariintaasna maaragtay ilaaho inay gaarto asoo shacab fiicnaan lahayd ani madaxweynaha la dooranayo hadda soo socdo ilaahay ha ka dhigo mid ila kulmin doono Rajab Tayyip Erdogan oo ii geenay ilaaha ka dhigo ilaahow ka dhig midaan Rajab Tayyip Erdogan ila kulmin doono ilaahayow ha u dhiibin xilka yaa rabbi ilaahow xilka ha u dhiibin ilaahow rabbi xilka ha u dhiibin midka xilka qaban doono mid wadanka wax badan ka bedeli doono oo maaragtay dadka jimeen doono oo maaragtay
waddankeena ummadda dhan wax u qaban doono oo dadka masaakiinta agoonyaasha wax kaamka dadku jiro dhan oo guri siinaayo dharjinaayo oo baahi yacni ka ilaalinaayo dadka ilmahayaasha oo jidka jaayaal maaragta oo koolada dhuuqa inta soo qabto xareenaayo oo meel u sameynaayo oo ka dhaqaayo daraagiska kula jiray u qaato ilaahow ka dhig aamiin dhaha ikii ugeyn lahay ordigan hafturka ilaahay ha ka dhigo aamiin dhaha intaasaa idiga sugaa wallaahi laa cadiim aamiinta hoos kusoo qorkow dhaha midkii ii geyn lahaayo Rajab Tayyip Erdogan ila kulansiin lahaa ilaahow ka dhig madaxweynaha la dooranayo haddaa Rajab Tayyip Erdogan ii geyn waysid kursiga akula gadoomo ak fadhiisan doontid waa ku sheegay wadani qofkaan wadani waaye qabiilkii matasha qabiilkaaga yaabaaye yaa kursiga kugu fadhiyo dadaa dheheenin ilaah keeno laakiin haddas baqabiilas bulugu dhisooya waxaan iga dhaaf wax ma hadli kari qabiil ana ma qaan qabyaalad meelan ka tagna ma aqaan balaayad waddankeen qabyaalad Allahu akbar ilaahu qabiilka naga baabi'e waayo meesha qabiila wax waliba lagu dhisaaya qabiil waxba nooma taraayo ma fahamtay laakiin dadkii madaxda ahaa qabiilba hadda qabiilka ay wadaane dhaafo ciilkooda ay haay ma fahamtay waayo waxa lagu leeyahay qofkan wadani waay wadani qabiil maxaa aga daray fiir qabiil ma wadani u noqdo se dalkiisa oo wadani u noqday maalinta aan taageeray Erdogan oo aan dibkii rafaadkii ogaanta u soo maray ogeedeen oo aan inta u soo istaagay gabiyo xaad dadkii istaajinaysa waddankeena wuxuu u qabtay inuu yahay xabiib malaayiin islaamka dhan oo garab istaagay markaa sheegay oo waddankeena mugdi soo ku jiro ka saaray aftiinka keena markaa sheegay maxaa leedahay dad madax ay soo wacayaan ay dhahay gabar wadaniyada tahay safiirka lagu kulansiiya kursiga kugu fadhiyo aniga kan kursiga ugu fadhiya iigu sheegay kan kursiga ugu fadhiyo naftigiisa qabiilka lagu sii fadhiyaa kan kursiga ii matalaya sheegaysiin qabiil ugu fadhiyaa lafto asigii uu sii fadhiyaa runta la isku sheego wallahi alcadiim aniga qabiil wuxuu qurun waa qabiil waxa qabiil noo taray ma jirto qofka kursiga ku fadhiyo sheegaysiin in adeerkiis dhow haduu yahay gacanta intuu ka qabto safiir kula kulansiyo kaala arag oo ku geelaha marka aad madaxa tahana ay soo wicisa leedahay wadaniya tahee ayaa kursiga ku matalo matalka ii weydiinay madaxa tahee warmaasho madax kuma haysiin waxaan dawlad wax ka bedelaysa ilaahay noo keeno oo qabyaalad ka bedelaysa qof kasto ma aragtay ii sheeg qabyaalada meesha kula orda war anoo jooga laba qof safiirka la kulansiiyay saddex waa wada ogtihiin anoo magaca hafturki dib ogaanta u soo maray magacii lagu dhiji hafturki rafaad aan u soo maray ya wada ogyihiin isha iga fiirsanayeen dawlad kulligood way iga fiirsanayeen ma fahamtay qabyaaladkii madax oo soo wacan wuxuu dhahayaa dawlad waxa ii hayso walaal wax ii qabato mal hadda rabto idin sheega walaal laakiin hal qof aan niyad ku haya halkaas qof aan rajeynaya hadduu kursiga fariisto ina ma aragtay aan heli doono hadafkeygan aan gaari doono rajeynaya halkaas qofne ilaahay subxaanahu wa ta'ala xilka ha iigu dhiibo halkaas qof ilaahay kursiga ku fariisiyo halkaas qof aan niyad aan ku hayo niyadeeda ku haysanaya niyadna waxa ugu haystaa xaalado jirad awgeedan niyadeeda ugu haystaa ma sheegay fahamtay wax waliba waa iska cadiin oo ujeedin laakiin waxa idin leeyahay insha Allah midkii waddankiisa dalkiisa anfacadaha nooga dhigo wax badan iga guuxooyo marka waxayna waa soo butaac waan isciliye khalaas laakiin family farxii Soomaali official qofkan wata ani niyadeedan ku wataa sireena ii tahay ani ilaahay bay sir noo tahay waxaan idin leeyahay insha Allah waan arki doonaa say wax waliba isku bedelaan video aan share garay insha Allah inta page-kayga hadda oo ila joogto mahadsantiin follow isoo dhaha dadka cusub Facebook follow iga soo dhaha page-kayga dadka YouTube-ka subscribe isoo saara boqolkii insha Allah na gaarsiiyo waxaan idin tagaa sidaas nabadgelyo iyo kii madaxweyne noqda aan wada aragna insha Allah
waa inoo mar kaleenta iyo madaxweynaha cusub aan arki doono. Asalaamu calaykum.